السلام عليكم magacaygu waa Amiin halka naga daawanaysan waa kanaalka Faraxlow maanta waxa rabaa inaan idin la wadaago qiso cajiib ah oo dhex martay nin iyo xaaskiisa inta aan muuqaalkan u gudagelin waxaan idin ka codsanayaa inaad like saartaan muuqaalkan kuna soo biirtaan kanaalkeena YouTube ee Faraxlow sidoo kale inaad soo follow gareysaan page-keena Facebook ee Faraxlow mahadsanidin magacaygu waa Jim waxaan si farxad leh u guursaday gabar lagu magacaabo Tracy waxaan isqabnaa muddo dhan ilaa 6 sano maalin maalmaha kamid ah ayaan waxaan helnay warka ugu farxada badan nolosheena hadda ma waxaad isweydiinaysaa ma uur ayay yeelatay jawaabtu waa maya malahan wax uur ah ee warka farxada leh waxa weeye xaaskeyga Tracy ayaa waxay heshay lacag dhan 8 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxayna ku heshay qaab bakhtiyaa nasiib ah waxaan rumooday riyadeena isla markiiba aniga iyo xaaskeyga Tracy waxaan qorsheynay sida aan u isticmaali lahayn lacagtan aadka u tirada badan waxaan ugu dambeyn ku fikirnay inaan u guurno guri apartment ah sidoo kale inaan iibsano daaro dhaadheer ama dabaqyo dhaadheer aniga Jim ahaan waxaan ku fikiray inaan iibsado gaari Ferrari ah iyo gaari Porsche haddaba ma rumaysan doontid waxa xigay xaaskeyga Tracy ayaa aad ugu boodbooday qolkeena jiifka waxayna la ooysay farxad darteed anigana waxaan wacay booskeyga waxaana ku dhahay dib dambe kuguma soo laaban doono subaxdaas oo dhan waxaan ku jiray farxadaas oo ah inaan weligii aanan u baahnaan doonin inaan maalin kale aan shaqeeyo intaan noolahay markii la gaaray waqtiga qadada waxaan aaday maqaayad xaaskeyga Tracy ayaana ugu balamisay maqaayada anigana waxaan dareemay farxad waxaana isku maleeyay inaan ahayba ninka ugu farxada badan adduunka markaa kadib Tracy wili maqaayada ma aysan imaan oo waxaan sugayay inay imaado maqaayada maadaama ay iyada nagu balimisay maqaayada waxaan sugayay muddo dhan 30 daqiiqo xitaa dhowr jeer ayaan telefoonkeeda wacay mana iga qaban telefoonkeeda waqti yar kadib telefoonkeyga ayaan furay waxaan ku arkay telefoonkeyga message oo ay ii soo dirtay xaaskeyga Tracy waxayna u qorneed sidaan Jim waan ku xumahay waxyaabaha aad rabto ma ku sameyn karo maxaa yeelay waxaan aniga raba iyo waxaad adiga rabtid aad ay u kala duwan yihiin sida daraadeed ha ka walwalin inaad dib dambe ii aragto sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego alaabteeda waan rartay waxaan u rartay guri cusub oo apartment ah waa rumaysan waaye hadalka ay ugu diray xaaskeyga anigana aad iyo aad ayaan ugu xanaaqay maadaama ay lacagta kaligeed qaadatay waxaan ku fikiray inaan arinkan aan la wadaago wargeysyada waxaana wacay joornaal kasta oo maxalli ah waxaan u sheegay wixii dhacay isla markiiba waxay rabeen inay wareysi ila yeeshaan laakiin waxaan siiyay qoraalkii Tracy ay ii soo dirtay subaxdii dambe ayaan soo aaday dukaan waxaan ku arkay dukaanka qaanado badan oo ay ka buuxaan joornaalo oo aniga qisadeyda ka hadlaya joornaalka waxaan ku qornaa wax walba oo na dhex maray aniga iyo Tracy si daran ayaa loo ceebeeyay qof walbana wuu ogaaday ceebteeda maadaama joornaalada lagu daabacay waxa dhex maray ayada iyo ninkeeda laakiin aniga Jim ahaan intaas kuma ekaan waxa kaloo go'aansaday inaan ku dacweeyo maxkamad kadib markii maxkamadda xaadir aan ka noqonay Tracy aniga iyo abukaatayaasha dood dheer kadib ayaa garsooruhu ku soo dhameeyay in Tracy kaligeed aysan lacagta qaadan karin maadaama ay lacagta bakhtiyaa nasiib ku heshay ayna waajib tahay lacagta ay heshay kala bar ay siiso ninkeeda Jim sidoo kale Tracy wuxuu garsooruhu ku amray inay bixiso lacagta abukaatayaasha Jim oo dhan 70,000 oo doolarka Mareykanka ah inkastoo xaaskeyga Tracy aan halka ku waayay balse hadeer aniga ayaa ka lacag badan Tracy maadaama aan helay lacag dhan 4 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxaan iibsaday waxyaabihii aan jeclaa oo aan ku riyoon jiray sida gaariga Ferrari iyo gaariga Porsche iyo guri raaxo badan ayaan iibsaday sidoo kale waxaan iibsaday saacad qiimaheedu tahay 200,000 oo doolarka Mareykanka ah ugu dambeyn Jim ayaa ku soo gabagabeeyay hadalkii oo yiri marka laga reebo gaariga waan hubaa in saacadan iyo gurigan uu qiimahooda aad u kordhi doono 10 sano ee soo socda muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay haddii aad muuqaalkan ka heshay ha ilaabin inaad like saarto muuqaalkan si uu u gaaro asxaab badan aragtidaadana nugula wadaag qaybta hoose ee commentiga muuqaalka xiga waxaan oo rajeynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano mac salaama